maanta oo kale adduunka waxa lagu xusaa maalinta xirfadaha dhalinyarada adduunka. Machadka Han Academy waa xarun dhalinyarada lagu baro xirfadaha gacanta ayaa Muqdisho maanta ku qabatay xuska maalinta xirfadaha dhalinyarada adduunka. Waxaana goobta Han Academy ku soo bandhigtay dhalinyarada ay bareen xirfadaha kala duwan sida cilaansaarka, make-upka, dhismooyinka, korontada, cunto karinta, graphic design iyo video editing. waxaana dhalinyarada kala duwan ee ku muuqanaya ay ku mashquulsan yihiin sidii ay xirfadaha kala duwan ay u barteen ay ugu shaqeyn lahaayeen guud ahaan gayga Soomaaliya. Mustaf Ahmed oo kamid ah macallimiinta wax ka dhiga Machadka Han Academy ayaa waxa uu sharaxay dhalinyarada kala duwan waxyaabaha ay baraan. waxaan kamid ahay macallimiinta Han Academy khaasatan macallimiinta oo construction-ka ama qaybta dhismaha wax ka dhigta. ardayda waxaan barnaa koorsooyin fara badan. koorsooyinkaas waxaa kamid ah waxaa ugu horeeya koorsooyinkaas waxaa waaye waa blockiska ama blokeetiyada iyo qaabka loo isticmaalo iyo maaragtay noocyadooda iyo designiskooda. sidoo kale waxaan dhignaa koorsada labaad waxaa waaye paintingka oo ah rinjiyeynta iyo qaabka loo isticmaalo iyo maaragtay farsamooyinka la isticmaalo. sidoo kale koorsooyin waxyaabo badan oo maaragtay oo dhismaha ku saabsan waa sameynaa sida maaragtay construction maaragtay ideas fikradaha iyo waxyaabaha maaragtay construction ku saabsan. Maslax Ali Aadan iyo Shukri Cabdullaahi Yalaxow oo kamid ah dhalinyarada kala duwan ee wax ka bartay Machadka Han Academy ayaan wax ka weydiinay waxyaabaha ay barteen iyo siyaabaha kala duwan ee ku kalifay. magacaygu waa Maslax Ali Aadan Cali waxaan wax ka bartay Han Academy waxaan bartay xirfadda multimedia ma sha Allah aad ay ugu mahadcelinaya macallimiinteeda oo intaas oo dheer muddo dheer oo igu siiyay dadaal si ay yeelaan qof oo karta oo iga dhigaan qof oo hadhowdii karti leh oo wax walba qabsi kara wax walba oo haday naqato oo qaab oo video haday naqato qaab oo haday naqato oo kan ma sha Allah waan ugu mahadcelinaya dhamaan macallimiinteeda. waa Shukri Cabdullaahi Yalaxow dhigata Han Academy ka qaas ahaan multimedia maanta waa ardaydii oo waxaan ka mid noqday nasiibka u heshay xirfadihii ay barteen meeshan ku soo bandhigaya maadaama ay ku beegan tahay maanta sida la sheegay maalinta xirfadaha adduunka. waxaan ku baranay waxyaabo fara badan oo multimedia ay kamid yihiin sida video loo duubo, sida loo edit gareeyo, sida sawir loo qaado iyo sida waxa u baahato u design gareyn lahayd. aad iyo aad ayaan uga faa'iideysanay Han Academy xirfadaha aan baranay. waxaan rajaynaynaa insha Allah inaynu ka guulgaarno riyadeennii wayna noo rumowday insha Allah mar dhow. waxaan rajaynaynaa dadkooda tara ayagana istara inaynu noqono markaan anagu wax istarno ayaan dadkeena wax tari karnaa. Farxiyo Ibrahim Hussein iyo Jamaal Cabduqaadir Maxamed oo kamid ah maamulka Han Academy ayaa waxay ka warbixiyeen waxyaabaha ay baraan dhalinyarada kala duwan iyo maanta oo ay ku beegan tahay maalinta xirfadaha dhalinyarada adduunka. maanta waxay ku beegan tahay 15 July oo kulay dunida dhan looga dabaaldego maalinta xirfadaha dhalinyarada ee adduunka World Youth Skills Day. Han Academy maanta waxaan qabanay event oo ay ardaydii macadka wax ka dhigata iyo qaarkood macadka qalin jabiyo xirfado bartay ee soo bandhigeen xirfadaha la soo bandhigay waxaa kamid ahaa cunno karintii, electrician-kii, solar-kii, graphic design-kii iyo video editing-kii iyo sidoo kale make-up-kii iyo cilaansaarkii. ardayda ayaa uga qayb qaadanayay dhammaan skills-kay leeyihiin si ay u soo bandhigaan ayagoo badanaa u wada shaqeynayeen as group oo waxyaabihii ay barteen ay soo bandhigayeen. qaarkoodna had already waa qaar magaalada ku jiro ka shaqeysta oo aan maanta marti qaadnay. magacaygu waa Fatxiyo Ibrahim Hussein waxaan kamid ahay howlwadeenada Somali STEM Society. STEM waxay u taagan tahay Science, Technology, Engineering and Mathematics. shanta xirfadood kamid ah ayay soo bandhigayeen dhalinyarada maanta kaga qayb qaadanaysa STEM iyo Han Academy ay soo bandhigayeen maanta xirfadayahanada adduunka dhalinyarada. hadda waxaynu daawanaynay oo teamka lagu tababarayay 3D printer oo qaabka fogaan aragga lagu tababarayay wuxuu soconayaa ilaa 2 July dhamaadkeedu soconayaa tababarkaasi haddii Ilaahay idmo waxaana ku soo bandhigi doonaan maanta finalka ee Somali STEM Society Summit-keeda 2022. dunida maanta oo kale ayay u aqoonsatay maalinta xirfadaha dhalinyarada adduunka. Maxamed Cabdiraxmaan Xasan warbaahinta Dalsan Muqdisho.